Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Bayaaniya channel. Videogan waxaa uga hadli rabnaa saddex sir ama saddex qaab oo ku jiro Photoshop. Videogan waxaa diyaariyay oo isku dabariday channelka CMK. Waxaana soo jeedin doona Cabdimajid Maxamed Cali, Cabdimajid KB. Daawasho wacan. qodobka koowaad ama farsamada koowaad waxay noqonaysaa clip mask. waa maxay clip mask? clip mask waa sidaad u jeedo sawirkan Maxamed Saacad hadda waxa uu ku dhex jiraa number 10 numberkaas sidaan u dhex geliyay waxaan isticmaalay clip mask ama shape ayaad waxa samayn kartaa sawir dhex gelin kartaa ama waxyaabo kale ayaad waxaad dhex gelin kartaa sawir sidaasi waa creating clip mask. okay hadda workspace-kan noo banaan oo dhankan midigta jira ayaan ku shaqayn doonaa. marka hore text ayaan ku qoraynaa oo number 10 ah. number 10 xoogaa hoos ayaan usoo dhigi doonaa, kadibna waxaan samayn doonaa fartii ayaan dooran doonaa oo hadda numberkii halkii iyo eberka ayaa space u dhexeeya. maxaan sameeyaa si aan isu soo dhaweeyo? properties ayaa tagaysa, character-ka ayaad isaga soo dhaweyn kartaa. waa kaa geeska xoogaa. marka aan sidaan isugu soo dhaweeyo kadib waxaan u sameynayaa calaamada tigta ayaan kusii dhufanayaa, kadibna stroke ayaan siinayaa. stroke ayaan siinayaa xoogaa size-kiisa stroke-ga 21 enough waaye. kadibna sawirkii Maxamed Saacad ayaan soo qaadanayaa, file place embedded, then waa kaa oo Maxamed Saacad ayaan soo qaadanayaa si aan u sameeyo. markaan la simo sawirka numberkii waxaan isa sameeyaa sawirka Maxamed Saacad, kadibna tig ayaan saarayaa. wax weyn ma aha, right click ayaad waxaad right click ku dhahaysaa sawirka Maxamed Saacad create clip mask, kadibna waa ujeedaa oo waxa uu ku dhex jiraa number 10. si midkaan aan wada ekaysiiyo place embedded mar labaad, kadibna Maxamed Saacad sawirkiisa ayaan soo qaadanaya. sidoo kale waxaan sameynayaa xagga sare background ayaa uga dhigi doonaa oo waan la ekaysiinayaa, kadibna take waxaan sameyn doonaa xagga hoose ayaan keeni doonaa background ayaan waxaan siin doonaa solid color oo waxaan uga dhigi doonaa sorry layerkan cusub ee aan keensaday ayaan waxaan ku sameyn doonaa solid color. opacity-giis ayaan waxaan ka dhigi doonaa wax aad u yar. hadda waad ujeedaa waan isu ekaysiiyey. haddii midkaan aan iska xirno waa ka creating clip mask waa noocan. okay triga labaad wuxuu noqonayaa sidii hadda aan u isticmaalayay labada saf, midna sawir inta ii yaalay sawir kalena geeskan kale ii jiray. si aan u sameeyo create new, then laba document markay sidaan igu furan yihiin ayaa waxaan sameyn karaa midna gees ayaan soo dhigan karaa midna geeska kale. sideen u sameeyaa? window ayaan tagayaa, arrange ayaan tagayaa, kadibna to up vertical waa ka oo midkii cadaanka ahaa midkii Maxamed Saacad ayay saarnaana waa ka. okay triga saddexaad waxa uu noqonayaa sidaad ay isugu soo dhaweeyo farta ama aad laymanka u kala fogeyn karto. waxaan sameynayaa hadda waxaan iska tuuri doonaa. okay triga saddexaad ama farsamada saddexaad waxay noqonaysaa sidii fartaan aad ugu ruxsan lahayd. waxaad isticmaalaysaa character oo halkan waxaad ka dooran kartaa fartii nooceeda ayaad ka bedelan kartaa. antana regular iyo bold iyo waxaad ka dhigaysa italic iyo waxaad ka dhigi lahayd. halkanna waa size-kii farta
intana waa kala fogeynta safafka. hadda waad ujeedaa safkii ayaan aad u kala fogeeyey. inta waa isu soo dhaweyntii iyo kala fogeyntii xarfaha weedhiska aad qoratay xarfaha ayaad isu soo dhaweyn kartaa, si aad ayaad isugu soo dhaweyn kartaa. halka haddana waa kala fogeyn kartaa. saddexdaas farsamood ayaan kuu soo jeediyey. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday in badan. si aan videoda usoo badino nagu dhiirigeli inaad like saarto, videogana aad share garayso, channelkan ha ka ilowin inaad subscribe saarto.